ciddaanan la joogay marka asbuuc yahuuda cunto ii karinayeen si wanaagsan ay usoo dhawaanayeen waa dee perceptionkaan kuu sheegayo yahuud fiican bismillahi raxmaan raxmaan leeyahay moogta qof weligii laga dhadhicin jiray yahuud inaysa xataa bilaadan ahayna moogta marka waxaa la yaab leed marka waxay iga sheekaynayaan inay dhulkan ayagu lahaayeen oo laga raray ayagu lahaa jireen oo isoo laabteen oo dadkaani soo galeen oo sidaan ahaayeen taariikhda nooc walbay haystaan ayaga storygooda waa u saxan yahay ayaga sidii u arkaan ciddii laga soo rarana iyagana asbuuc kale yaan la joogay asbuuca kale oon la joogay ciddaas waxa waaye waa falastiiniyiinta ah waxay dareensiiyeen inaan xoogaa madow ahay aniga oo waxaas macnaha ay ka hadlayaan maanta oo dhan macnaha inaan madow ahay oo saan ahay soomaalida of course ayaga wax dhib ay kuma samaynin oo ayagana programka waa ka soo duubay laakiin kuwan yuhuudda kalarkiiga xataa kamay hadlin aragti kala hadlayn kuwan finishka cameramanka ila socda marka falastiiniyiintu asagay xiiseynayaan oo maanta oo dhan asagay macnaha asagay wuxuu sheegayaan rabaa in la hadlaan war cameramanka way shukaansadaan hataa english ma yaqaan xataa saas finish oo ku hadla kuwa yahuudana anigay xiiseynayaan dhika cad buu uma jeedaan marka waxa xeed yaab loonde maskaxiyan aan dib uga fikiray waxa marka dareed marka waxaan u fahmay yahuudda markaad la joogtay cusuriid ma dareemaynin iyo kalarkaaga may macno ma lahayn marka waa inay wax kugu shubtaan oo aragtidooda ku sheegaan wax xiiseynayaan yes laakiin falastiiniinta markaad u tagtay cagsigeeda noqotay ninkii kaameramankaga xiiseynayeen laakiin adiga inay kula hadlaan oo muslim macno ma samaynin macnaha fiiri xataa waa yahuudda teknikadoodaba waaba saasba qofka waxaa laga yaabaa inayba dhaqan ahaan u leeyihiin in qofka ay soo jiitaan ay soo duntaan si walbaba kusoo duntaan so waa inaad tustaa qofkan si oo adiga macnaha for example maqan ma teknika ma dhaqana I don't know laakiin aniga kale dareenkaas markaan u nimaado dhaqankeena islaamka ama dhaqanka kale yahuud martiyaad ahaydeen martidana xeer ay leedahay marka martinimadii labada qoloba ku sinayn marka yahuudi iyo muslimkii u kala tagtay somehow ma sinayn yes of course waa bay dhigi karaa laakiin markaas muslimnimo maaha you know I don't think in haddii kuwa falastiiniinta ay diinta muslimka siday tahay ay ku dhaqmi lahaayeen I don't think inay kalarkayga xataa ka hadlaayeen laakiin waa dhaqan laakiin kuwa yahuudda inaad muslim tahay waa ogaayeen yes magacayga ujeedaa in muslim way ogaayeen marka programkaas marka wuxuu ka hadlayay Finland sida ay u tahay laba wajiile oo hubka ugu badan waxay ka soo iibsataa Tel Aviv warshad ku taala hubka way ka soo iibsataa ciidamadooda wax ku soo tababaran Israa'iil billions lacag geliyaan sanad walba dhanka kalena waxay caawiyaan dhowr milyan oo lacag waxay siiyaan Falastiiniyiinta guryaha laga xaaqay ay caawiyaan marka storyga waxa ka hadlayay laba wajiilnimada cashuurta Finland loo isticmaalayo waay qolada lagu nasnuujinayo may waaba ku nasnuujinayaan dibkii ay geysteen ayagu ay qaybta ka ahaayeen dibkii dadkii loo geystana waxaan siinayna ay leeyihiin so that was my story waxa kaga sii daran qarashka ayaga bixinaya finishka ayaga bixiyo TV-ga bixiyo waxaan dhan aniga cameramanka ayaga waxaas dhan programku saaco ahaayeen markaan diyaariyay soo laabtay aan barnaamijka la soo diyaariyay xataa xayisiinta la geliyo wax qayb yar oo YouTube la geliyay yaa maalin waxa ii yeeray ninka la yiraahdo nin oo ahaa producer bas la yiraahdo ii waxay soo saare marka waxaan weerinay waliyo barnaamijka soo deemayno barnaamijku fiican yahay oo heer sare soo deemayno xataa 5 minutes already YouTube ka shaqo wala xayisiinay bariyaan maxaa dhacay صاحبه برنامجكان ودن كفيلان سمعت حوق لا وجدتو oo de hub kan ay ka soo iibsadaan macnaha waxa ku socdaa wiil ya gabar oo barnaamij ku socda nusac waxay yihiin dadka barnaamij ku socda familku qayb waay wiilkan ay gabadhu waxay aaminsan tahay diin waxay aaminsan yihiin in Israa'iil Ilaahay doortay wixii Israa'iil caawiyana diintooda qayb kamid ah Kirishtaanka waaye inay yihiin dad alla doortay markaasaa gabdhaha Taambere iyo ka baxa Yurub oo dhan ka baxaan waxay u aadan ciidanka u tagayaan baawur kabay u dhaqayaan dharkay u dhaqayaan ciidanka maarta Yahuuda ay caawinayaan
وانا عيالك فينيش كا عيالك قبر فينيش وايبا oo reetaan baraha waay maantaadi aragtidana inta waddankeeda ka qaadato aragtida waddanka ka qaadato marka waa baxaanba waa caadi marka gabadhaas aan taan raacay aan waraysi ka qaadooya ayadoo nadiifinayso ayadoo cuntada u sameynayso ayadoo ajri ku raadsanaysa waraysiga halkaan uga qaaday xagga markaan tagana waa ka duuba waay qaybta kalena waxaan ka duubay wiil sawirada Europeanka activistayaal waxaa jira sawirro ka qaaday ciidamada yuhuudda markay dadka Falastiiniinta dhibaateynayaan ama xiraayaan ama dilayaan ama dhagax wiilasha yararka dad waxaa jira sawirro ka qaadaya maanta oo dhan oo human rights u gudbinaya oo aan la jeclayn waay iyo wiil finish oo saas sameynaya labadooda marka barnaamij ku socdaa macnaha Finland laba cunug oo finish ah ama laba qof oo dhalinyaro oo finish ah oo midna aaminsan yahay inay khayr iyo ajar uu ka helayo inuu yuhuud u qadmeeyo oo gabar ah iyo wiil aaminsan waxaan inay tahay wax xuquuqda bini'aadamka soo horjeeda ficilada ciidamada ku dhaqmayaan Israa'iil labada sheeko iyo Finland markii laga fiiriyo oo intaasoo milyan ku bixisa hubka soo iibsasho iyo oo fangareysa warshada hubka ay Israa'iil ka samaysato hubkana waa hubka lagu caburiyo Falastiiniinta waay oo hubkaasna way siinayaan kuwaana lacag yar oo waxay raysiinayaan oo caawinaad la dhaho macnaha humanitarian ka siiyaan alors marka Finland waxa ku cad inay si qaldan wax u sameynayaan waa hadana aragta clipkan oo aragtaan u maleynaa ninka buurta saaran oo ka hadlaya asaaba sheegayba waa nin yuhuud ah oo ka soo horjeeda waxyaabaha yuhuudda ku haysta Falastiiniinta ninka wareysanayo oo Mareykan marka waay producerku ku yeeray marka wuxuu niyo barnaamijka soo deynayno oo maxaa dhacay soo deynayno Finland ceeb ku toori Finland freedom expression number 1 way tunid waxa marka la yaabo waxaan ku leeyahay basio hadaanan soo deynin adiga ma journalism adiga la hadloosaa mase wadanimo adiga la hadlaa ku leeyahay wadankaaga inuu ceebo ma igala hadle mase storyga ayaa qaldan wadankan kala hadlaa Abduuli su'aal kale ay weydiin full stop waay wadanimo kala hadlaa waana producer kida ba over 30,000 ku baxda programkaas 70s sida lagu joojiyo ilaa hadda wuxuu saaran yahay waxaan hadda ilaa hadda barnaamijka waa yaala soo diyaarsan oo yaala ilaa hadda soo meesadeen maxay marka waxa ka awood badan wadankan oo xorriyatul qowlka meesha aragti ka gaaray oo dadku ay aragti iyo fakarba meesha aragti joogaan in la hor istaago barnaamij yar oo 30 daqiiqo ah idaacad hal midaan anigu aan dareema ninkan waa qanaan producerka ah aniga waxaan aaminsanahay finishku ma isku caburiyaan qofku caburiyay inuu jiro ama dawladda ka socda ama anay ma aaminsanayna asaga shaqsiyan go'aan ka soo qaatay reasonka uu qaatana waxa waaye wuxuu dareemay inay ceeb ku tahay dalkiisa in programkan lagu gudbiyo markaas armo ajar ka raasanayaa yuhuud ma ajar ma mentality-gooda qaada finishka mentality-gooda waxa waaye dad wadankooda ugu dhaarta waay journalism-kana ku dhaartaan laakiin barnaamijka wuxuu ahaa too critical ah asaga ayaga siday u arkaan ma garatay laakiin waa xaqiiq absolutely xaqiiq I think one of the best program on sameeyahay waayo waad fahmi kartaaba laba caruura laba famil laba filan oo laba waji kala dhaqmaysa waa very simple as a journalist waa fahmi kartaa qiimeeyada haddana wuxuu islimdaa shacabka waa ka soo horjeesanayaan ma ka heli doonaan barnaamijkaas of course waa adkaan lahayd labada dawladoodna sheeko cusub bilaaban lahayd markaan wax tababaray wariyaasha waa u sheegaan macnaha Soomaalidu markay leeyihiin freedom expression annaga waxaan sameeynaa waxaan noo ogol ishaga xuquuqda xorriyad qowlka noo ogol xorriyad qowlka dadka marar qaar inay ka fikiraan waayo wadankooda iyo dalkooda oo turidooda inuu wariyuhu ka fikiro waayo xorriyad qowlku qasab kugu maslaxada hadda ninkan wax ku qasbaya ma leeyahay barnaamij soo daayo laakiin markuu sameeynayo check balance waa samayn kartaa laakiin aniga qasab kuma aanan soo daayo haddaan ba u arko dadkayga inay dhibsanayaan ama waddanka ceeb ku soo gaarayso mogtahay marka freedom expressionka markas ay ka hadlaan Soomaalidu waa inaadan ka tagin wadaninimada iyo horumarka iyo dalkaaga inay markasta maskaxdaada kugu jirto waay aad tan marka saameynta waxay ku tusaysaa yuhuuddu leedahay barnaamijka qofkii hadda sheekada dhageysto wuxuu fahmi karaa in meel adag la taabtay oo laga yaabo barnaamijkaasi in saameynta qolada ku lugta leh yuhuudda laga hadlayo inay saameyn ku yeelan karto arrintaas
waa ku yeelan kartaa si waxay u yeelan kartaa ninku inuu ka cabsado yuhuudda programka ma arag ayagu see that's the problem laakiin may boromadana waa la arkay I don't think aniga ninkaas macnaha ninkaan aqaanaa moogtahay ninkaas producerka I don't think in yuhuudu ku bangaraysa laakiin waa jirtaa inuu isdhahay haddii yuhuuddu aragto barnaamijkan dhibkaasaa kusoo gaari doona waa laga yaabaa inuu isiri see maxaa kaaga baxay markaad qiimayso shaqadaas aad qabatay kolley barnaamijyo badan aa jiri kara oo sidaan oo kale wax u dhaceen laakiin barnaamij kasta marka la joojinayo dadka editorada ah inkastoo producer ahaa oo laga yaaba editorra ka waaweyn inay jireen waa inuu qofkii si wax uga barto loo sheegaa wixii qaldan yiraahdo waxaan weliba qoraal ahoo la yirahdo barnaamijka sababtaan lagu joojiyey sax aniga aragtidiisaan u arkay saan absolute qoraal waa jira qoraal waa isoo qorayba waxba keen wax kale ma igula soo xiriirinba email uu isoo diray oo yiri sabab iima sheegin barnaamijkan waa joojinay oo yiri marka hore wuxuu yiri barnaamijkan waxaan ku joojinay dib aan u dhigaynaa emailka markuu saas ugu soo qoreen is aragnay oo haddana wuxuu si cad igu yiri ma soo deynayno hadda dib u dhigid diiwaan haddii laada ku jiro barnaamijkii oo aad critic u ah iyo ninka sameeyo oo ah nin madow oo muslim ah lafteeda waa la qiimeyn karaa waxaa kaloo la qiimeyn karaa kusoo bixitaankaaga barnaamijkaas haddii la sii daayo I don't think saameyn weyn u yeelan midka kale ka dara ka virusiga oo aan sameeyay kusoo bixid haddii la yiraahdo ka fiicnaayo ka qatarsanaayo laakiin kusoo bixid ma ahayne wuxuu dhibsanayay waayo hadda uu ii sharaxi lahaa haddii xataa wax sababo jiraan emailku igu qodobayn lahaa ma garatay anigana de contractiga anigu lacagta malihi lagu bixiyey contractiga ayagaan la galay ayagaan iskale program copyrightkoodii wuxuu aniga shaqo kuma lihi waxba shaqo kuma lihi marka asagaa waxaa laga rabay inuu diyaariyo yiraahdo waxaas gudida ima sheegin de marka wadaniman gudida ugu gabagabeeyey waxaan ognahay barnaamijka qorshuu leeyahay producer uu leeyahay marka la baxayo fankiisa la bixinayo ayaa la og yahay barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay iyo waxa laga rabo iyo nuxurku wuxuu noqon doono taa muwaana isagu qayb ka ahayn aan kuu sheego qayb uu ka ahaa waxa bedelaan kuu sheegaa oo aniga aan isleeyahay xogaa trickinka ahaa wuxuu ahaa two critic nin ah na waa ku jira oo wadankan expertika oo finisher oo yanti la yiraahdaa ku jira marka waa ku jira barnaamijka aragta xataa oo YouTube qaybtiisa ku jira qaybta ah lacagta oo Finland ay siiso qaybtaas xogaa waxaan ugu jiray waxay ahayd labadan family iyo labadan gabdhood de barnaamijkana laguma samayn karo script writing kulligiis waxbaa kusoo kordhaya moogtahay marka waxaan u malaynaa midda ah inay hubka ay iibiyaan iyo lacagta iyo waxaas inay ahayd midda ugu darano oo xogaa wax ka yara bedesha waa tahay khiyaaray intaas ayuu ku leeyahay barnaamijkii waraysiga ahaa ee aan kaga qaadaynay magaalada Helsinki ee wadanka Finland wariye weli xaashi oo ah wariye ka tirsan warbaahinta qaranka wadanka Finland oo aad iyo aad uga sheekeynaya arrimo badan oo daawateen waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan intaynu mar kale kulmi doono waxaad leenahay nabadgalo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baahan noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doono barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid